kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno iskaashiga wadamada geeska Afrika. Waa Cali Baasha Cabdullaahi. Waxa laga yaabaa inaad weydiinayso su'aalo ku saabsan muxuu yahay iskaashigan. Maxaa faa'iido ugu jira Soomaaliya oo ah dalkaagii? Waa ay dawladda ugu macaashka badan iskaashigan. Muxuu yahay doorka dawladda Soomaaliya ay ku leedahay wada hadallada u dhaxeeya dawladaha Djibouti iyo Eritrea? Dhammaan jawaabaha su'aalahaas aad isweydiinayso waxaad kaga bogan kartaa barnaamijkan gaarka ah aan uga hadlayno iskaashiga wadamada geeska Afrika. dawladaha Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea oo ku yaala geeska Afrika isla markaana ah dawlado wadaaga xuduudo dhuleed iyo mid badeed ayaa muddo dheer waxa ay shucuubtooda u kala qoqobneed dagaal hareeyay wadamadaasi kuwa dariska la ah. Soomaaliya iyo Ethiopia wixii ka dambeeyay dagaaladii dhexmaray oo hadda laga joogo in ka badan 40 sano ayaa noqday caqabad weyn oo hortaagneed iskaashi dhexmara labada shacab. Eritrea iyo Ethiopia waxay muddo ku dagaalamayeen xadka u dhaxeeya halka Djibouti iyo Eritrea si lamida uga dhaxeeya dagaal dhanka xuduudaha ah oo wali xalkiisu u socdo. dhibaatooyinkaas dagaaladu waxa ay geeska Afrika u diideen inuu ka faa'iideysto maalgashiga dibadda ah si uu la baratamo bulshada bariga waqooyiga iyo galbeedka Afrika. isbedeladii dhanka doorashooyinka iyo magacaabista ee labadii sano ugu dambeysay ka dhacay dalalka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa noqday kuwo la soo baxay awood siyaasadeed oo furfuran oo saameyn ku yeelatay geeska Afrika. bishii July ee sanadkan waxa magaalada Asmara ee xarunta wadanka Eritrea ka degay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas ay ahayd booqashadii ugu horeysay ee halkaas uu ka tago madaxweyne ka socda Soomaaliya tan iyo markii Eritrea ay ka gooday Ethiopia sanadii 1991kii. madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa Eritrea Siyaasa Afwerki ayaa ka wada hadlay iskaashi dhexmara labada dal iyo sidii loo dhameyn lahaa colaadda muddo ka dhaxaloosneed dalalka Djibouti iyo Eritrea. sidoo kale waxa uu madaxweyne Farmaajo bogaadiyay heshiiskii dhexmaray Eritrea iyo Ethiopia. bishii Juun ee sanadkan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayuu madaxweyne Farmaajo ku casuumay inuu yimaado magaalada Muqdisho halkaas oo ay labada dhinac ku wada hadleen waxaana ay muujiyeen sida ay labada dawladood isaga kaashanayaan dhinacyo badan iyo sida ay diyaarka ugu yihiin wadamada geeska Afrika ay dagaaladu la hareen inay uga gudbaan sidii shucuubtoodu ay wax wada qabsan lahayd. Your visit today deepens our already strong political and social relationships, and I'm committed to take our relations to the next level. booqashadaada maanta waxay ka turjumaysaa xiriirka xoogan ee siyaasadeed iyo midka arrimaha bulshada ee soo jireenka ah iyo in ay naga go'an tahay in xiriirkeennu uu u gudbo heerka labaad. ma jiraan wax kala qaybin kara labada dal ee walaalaha ah. waa waajibaadna saaran inaan hubinno nabadgelyada iyo barwaaqada dalweynayaasheennu iyadoo loo marayo isdhexgal dhaqaale oo dhexmara bulshadeenna si ay u hiigsadaan mustaqbal ifaya. dawladaydu waxaa ka go'an inay si buuxda u hormariso iskaashi ganacsi oo dhexmara labada dal. My government is committed to develop strong economic cooperation between our two nations. Dr. Abiy Ahmed ayaa mowqifkaas ku raacay madaxweyne Farmaajo. Excellency, I am not here to laminate the past. mudane madaxweyne halkan uma joogo inaan adkeeyo wixii tagay laakiin inaan furo bog cusub xiriir cusub iyo aragti hor leh taasoo ku guuleysan doono mustaqbalka. haddii aan dib ugu laabto taariikhda waxa kaliya ee aad ogaan karto waa aragti kala duwan oo ku saleysan qalalaase iyo xagjirnimo. istiraatiijiyadda buuxda ee aan higsanayno ayaa ah sidii loo horumarin lahaa xasilooni ka dhalata gobolka geeska Afrika. waxaan rumaysanahay Soomaaliya inay si xoog leh u dhismayso gabi ahaanteed. Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka dadkeedu isku mid ka yihiin. haddaan nahay Ethiopia waan idin dhinac taagannahay si garba siman ah. waxaan dooran karnaa inaan mugdiga uga gudubno iftiin iyadoo aan isgarab taagannahay waxaana samayn karnaa waxa ugu wanaagsan. We will stand side by side, shoulder to shoulder. We can do better. tani waxay dhabaha u xaartay in dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay 5 bishii September ee sanadkan heshiis saddex goosooda ay ku kala sixdaan magaalada Asmara kaasoo lagu muujiyay xiriirka dhow ee saddexdan wadan ee ku aadan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada, dhaqanka iyo amniga.
6 Sebtembar ee sanadkan wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea ayaa ka degay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Djibouti si loo daafuro wada hadallada dawladaha Djibouti iyo Eritrea oo ay dawladda Soomaaliya u ahayd ahmiyad gaar ah sidii tabashada dawladda Djibouti loo xalin lahaa. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga wadamada gobolka u aragta mid muhiimad gaar ah ugu fadhiya shucuubta ku nool geeska Afrika gaar ahaanna sidii gobolka looga sifayn lahaa kooxaha ku kobca qalalaasaha ee hortaagan in gobolkan uu sameeyo horumar ballaaran. haddaba iskaashigan dhex maraya dawladaha geeska Afrika maxay dadka Soomaaliyeed ka faa'iidayeen waxaan hor dhignay Professor Xuseen Warsame. innaga markaa waxay noogu jiray horta waxa weeye Soomaalidu sideedaba cali baasho waa dad aad ugu fiican baa bishariga oo xataa inagoo burburay maanta wadankeenu wuxuu ku jiraa wadamada ugu fiican marka ay noqoto dhinaca isgaarsiinta ee laga dambeeyo waxa xataa la yaab ka noqotay markaan Canada jaamacadeedii Calgary ka imanay ardaydii kuwa aanu dhigay waxaan u sheegay in aan isticmaali doono telefoonkayga si aan wax ku bixiyo waa la yaabeen way xataa Canada taasada kama isticmaalo wali kaashbaan la ordayna marka waxyaalaha marka la isku dardaro Soomaalidu waa dad haddii ay helaan meel degan haddii ay helaan meel aan xuduud lagu xidhayn hadday helaan intaas iyagaa baacmishari badan samaysanaya innagana talabaad waxaan leenahay xeebta ugu badan ee Afrika 3,025 kilomitir weeyaan waxa laga samayn karaa dekada qayr caadi ah ayaa laga samayn karaa inagu marka haddii meeshii baacmishari ahaan la isku dhex galo waxyaalaha aan ku soo kordhinayna ma aha beeraha xitaa Itoobiya naga badan beero waan leenahay laakiin Itoobiya naga badan xoolo badan waan leenahay laakiin Itoobiya laftigeedu xoolo weelado Kenya laftigeedu waa laga keeni karaa meesha ugu badan ee inagu aan ku tartamayna waa xeebaha ama kalluun ha noqoto ama dekadii ha noqoto oo gaar ahaan dekadii awalba keenay ilbaxnimooyinkii Soomaalida ama taysiya la ka bilaabantay ahaato ama tii ka bilaabantay Muqdisho ha ahaato ama kuwii ceel ka bilaabmay ha ahaato intaba waxa keenay waxay had iyo jeer xeebay ahayd iyo dekaday ahayd tii inay soo noqoto ayaa marka ugu badnayd albaash waxaan ku sii darayaa intii ilbaxnimooyin soo baxay kuwa ugu badan ee aflaxay waxay ahaayeen kuwii soo baxay mar Itoobiya iyo Soomaaliya heshiis yihiin inta badan waan isleeyin jiray marna inaga ka badin jiray Soomaaliya ka badin jirtay marna iyaga naga adkaan jiray laakiin marar badan oo nabada bay jirtay markaas ilbaxyooyinkeenu ay cirka mari jireen hadda marka waxa laga yaabaa in arintiiba ay soo noqonayso oo de waxyaalaha Kenya waxa kamid ah waa tan albaashu nabadi ay ka dhacday geeska Afrika haddii marka taasi arintaas dhacday inaga baacshari fara badan ayaan ka helaynaa hadii ilaahay barwaaqan ka helaynaa madaxweyne Farmaajo ayaa furitaankii kalfadhiga afaraad ee golaha shacabka waxa uu ku soo bandhigay awoodda siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka iyo halka ay higsanayso marka laga hadlayo halka ay kaga taalo gobolka geeska Afrika. siyaasaddeena arrimaha dibadda waxay ku dhisan tahay is-ixtiraam tixgelin madax banaanida dal walba uu leeyahay in la ilaaliyo iyo wax wada qabsi iyo iskaashi waxaad la socotaan in Soomaaliya ay door weyn ka ciyaartay ama door weyn ka qaadatay iskaashiga dhaqaale kan ka hana qaadaya insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo geeska Afrika waxa guulin oo ah inaynu bilihii la soo dhaafay aynu dadaal ku bixinay ka qayb qaadashada sidii loo dhameystiri lahaa isfaham darrada ka dhex jirta dalalka gobolka geeska Afrika ka dhaxeeya waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la'aanta dalalka gobolka geeska Afrika waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la'aan ah ama zero conflict la yiraahdo ama zero tension la yiraahdo aan aadeyno iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka geeska Afrika dadka wax ka qora ama u dhuundilay arrimaha geeska Afrika ayaa qaba in iskaashiga dhinacyada badan Soomaaliya ay tahay cidda ugu macaashka badan Soomaaliya waxaan isleeyahay iskaashiga arrimo badan ay uga faa'iideysan kartaa oo ayada ah dawladda ugu horeysa maanta ka faa'iideysanayso xilli Soomaaliya ay ka soo bixaysay dhibaatadii hore ayuu iskaashigan ku soo aaday marka faa'iidada uu leeyahay Soomaaliya ayaa ka badan faa'iido oo u lahan karo dawladaha kale oo dhisan maanta sababta Soomaaliya hadda waxay u baahan tahay inay nabad hesho inay dhaqaale furfuran hesho
inay xorriyad iyo dimuqraadiyad laga qaato ay hesho oo muxuu ahay barnaamijkeeda uu sii socdo oosan halkaas ku joogsan inay amni sugan hesho in gobolladeeda iyo dadkeeda shucuubteeda ku nool geeska Afrika oo dhan ay fursad isu helaan inay wada shaqeeyaan oo integration waxa la yiraahdo ay wada sameeyaan marka fursadaasi Soomaaliya markii la qiimeeyo dawladaha geeska Afrika ayadaa lambar 1 ah ka faa'iideysiga ay ka faa'iideysan karto dawladda Soomaaliya ayaa ka sokow iskaashigan ay la gashay wadamada geeska Afrika waxay dhinaca kala eegtay maalgelinta Shiinuhu uu doonayo inuu ku sameeyo Afrika taas oo ku darsatay qorshaheeda si shaqo loogu abuuro dhalinyarada dalkan isla markaana dalkeedu u helo maalgashi waxaana tagistii Shiinaha ee madaxweynaha Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya la saxaxay Shiinaha heshiisyo dhinaca horumarada Shiinuhu uu doonayo inuu ka hirgeliyo Afrika oo Soomaaliya wixii sanadkan ka dambeeyay ay qayb ka noqonayso heshiiskan kala saxanay wuxuu ahaa mid adkeyn mid bilow oo ah iskaashi xagga siyaasadda xagga alaha xagga dhaqanka barashada Soomaaliya Shiina si aynu uga faa'iideysano maalgashi Afrika ku sameynayso si aan qayb uga noqono badda iyo dhulka dariiqyo dunka iyo China isku xirma si aynu uga faa'iideysano wax marka hore waa inuu jiraa safgarad innaga iyo Shiinana dhexmara safgaradkii ayaanu ayaa maaragtay waxa aan iskala saxiixanay wuxuu ahaa safgaradkaasi inaan isla fahamnay inaan iska kaashano qaybahaas oo dhan haddaba iskaashigan wadamada geeska Afrika waxa qayb ka ah dawladda Itoobiya oo Soomaalida qaar ay u arkaan in dana badan ay ka leedahay Soomaaliya haddaba sidee ayuu iskaashigan u saameyn karaa arrintaas dawladda Itoobiya maanta ka dhisan dawlad himilaleekaya ma aha waa dawlad uu ka madax yahay nin muslim lagu soo koriyay hadduna xataa hadda muslim ahayn muslim lagu soo koriyay isku kalsoon digriga xataa PhD da haysto nin jaahil ahayn oo magaraysa dhalinyaro ah durba lagu amaanay furfuriinka uu la galay magaraysa Eritrea uu magaraysa Djibouti iyo la galay Djibouti xataa imika la heshiisiinayo Eritrea uu madaxweynaha qayb xoog leh ka yahay hadda ogow isaga runtii oo prime ministerka Ethiopia cid uu ku amaanay arintaas waxay madaxweynaheena yahay marka Ethiopia hore ma waa taa horta ta labaad baahida maanta ay qabta Ethiopia ma aha in ciid ahaan dhulku qabsato baacmishir xoog lana yeeratay doonaysa baacmishirka saaw yeeratana waa inay heshaan meel wax uga soo degaan meeshii wax uga soo degayna way kooban tahay waa Djibouti iyo imika ay casab la yeelanayaan wax inta ka badan ay u baahan tahay hadii dhaqaalahoodu doonay inay ku soo biiraan wadamada dhaqaalaha dhexe hadii doonay wax ka badan marka inaan dabcan dekado ay yeelano jidad isku xidhaa yeelano oo ay jidadka marka la sameeyo qaybta Soomaaliya inaga maal gashanayna dekedeena inaga maal gashanayna ama deyn aan ku helno ama deeq aan ku helno ama inagu baan la baxnay inaga gashanayna qaybta wadanka Itoobiya dhexdeeda ana iyaga laftigooga Itoobiya ay qaybtada bixinayso inagu mar hadii aan dekadaha helo warshadaan ka sameyn ka saara wadankeena waxa la yiraahdaa baashu sideedaba wadamada ilbaxnimada adduunka waxa ka bilaabantaa xeebaha ka bilaabaysa warshadaynta adduunka xeebaha ka bilaabantay 50 kilomitir ayay warshadaha ugu badan adduunka u jiraan xeebta marka hadii warshada sameysmaan inta badan waxa ka sameysmayaan wadanka Soomaaliya xataa taa u adeegaysa Itoobiya wadanka Soomaaliya ka sameysmayaan dhoofintii meeshii laga dhoofinayna waba taasoo way dhowdahay marka hadii Ilaahay yiraahdo cidda ugu weyn ee runtii wax ka faa'iido doontaa waxaan filaynaa inay naga tahay dawladda Itoobiya maanta waa dawlad ka duwan tii berigaas dadkuna inay taa fahmaan ayaa aad iyo muhiim ah danteena anagu khasbiso Itoobiya maanta inaan isku xidhanaa oo dhaqaalaheena isku xidhmaa waa muhiim iyaguna ka faa'iidayaan innagana faa'iido ugu badan helayna dirada 10 November ee sanadkan magaalada Bahridaar ee dalka Itoobiya waxa isugu tagay madaxda dalalka Soomaaliya Itoobiya iyo Eritrea kuwaas oo dib u eegay heshiiskii iskaashiga nabadda iyo horumarka ee magaalada Asmara ay ku kala sixdeen iyagoo isla qiray in horumar balaaran uu jiro shirka waxa ugu weyn wuxuu ahaa oo muhiimka ah la saarayay nuxurka shirka loo tagayba in iskaashiga la dardar geliyo si loo helo maalgelin saddexda wadan oo wadanka oo markaasna la isu furo dhaqaalaha saddexda wadan
waxaana la soo saaray warmurtiyeedkaas oo ku xusan yahay in shirka dambe lagu qaban doono magaalada muqdisho ay soo socda haddii la yiraahdo waqtiga la qorsheeyo iyo siday uga go'an tahay in taageeraan Soomaaliya dib u soo noqoshadeeda amnigeeda madax bannaanideeda iyo nabadgelyadeedaba iskaashiga gobolka gaar ahaan geeska Afrika ayay aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxay ku tilmaameen mid wax weyn ka tiri doona ammaanka gobolka gaar ahaan fargelintii wadamada dibadda ay ku hayeen gudaha Soomaaliya iyadoo meesha ka saaraysa bay yiraahdeen cabsida in gobol ka tirsan Soomaaliya uu gooni isu taago maamul goboleedyada waxaa laga rabaa inay aqbalaan isbeddelka dhacay oo gobolka ka dhacay isbeddelka ka dhacay dawladnimada Soomaaliya isbeddelka ka dhacay muxuu ahaa systemka Soomaaliya isbeddelka gobolka ka socdo inay inta aqbalaan qaabkii loola saan qaadi lahaa hadda ay keenaan laakiin inaanay isku dayin inay ka hortagaan isbeddelkan oo san dhihin anagu wadadii hore iyo qaabkii hore aan ku soconayna heshiiskan wuxuu ku qasbayaa Somaliland inay dib u fiiriso go'aanadeedii hore sababtoo heshiiskan qodobka koobaad ee ka soo baxayba kii ugu dambeeyay hadda saddex geesoodka ah wuxuu tilmaamayaa midnimada iyo wadajirka iyo qarannimada ama gobonnimada Soomaaliya ciideeda iyo calankeeda iyo xuduudeedaba in la ilaaliyo arrintaasi aaday u taabanaysaa Somaliland suurtagalna ma aha dawladihii dariska ahay iyo gobolkii oo dhan oo hadda midnimo raadinayo inay aqbalaan ama ay ogolaadaan in go'itaan hadda uu imaado heshiisyada nabadda ee dalalka geeska Afrika ee ku salaysan iskaashiga iyo wax wada qabsiga waxa uu rajo u yahay shucuubta